maadaama taleefanada waaweyn ee Samsung sida S24, S23 iyo kuwa la midka ay reverse charge bixin karaan amaba ay jaajaray karaan taleefanada iPhone, waxaan rabaa maanta inaan ogaado amaba aan tijaabino in taleefanadaas hore ee Samsung ay bixin karaan reverse charge. Taleefankan hadda aan gacanta ku hayo waa Samsung A30 amaba A30. Kulli waad fahmi kartaa. Waxaan rabaa inaan ku tijaabiyo in uu dab siin karo taleefankan iPhone-ka ah. iPhone-kan waa iPhone 12 Pro Max. Haddaba waxaan soo qaadanayaa fiiladan afkan waxay ka tahay sida kuu muuqata, afkan waxay ka tahay iPhone haddii aad arki karto. Sidoo kale afkanna waa USB Type C oo uu qaato taleefankan Samsung-ka ah. waxaan marka hore ku horreysiinayaa iPhone-ka sida kuu muuqata. marka hore iPhone-ka ayaan gelinayaa, kadibna waxaan dib u gelinayaa taleefanka Samsung-ka ah. sida kuu muuqata dabka waa uu qaatay. taleefanka iPhone-ka ah dabka waa uu ka qaadan karaa taleefon Samsung ah. weliba taleefankan aan hadda ku tijaabinayo waa Samsung A30 ama A30. waxaan rajaynayaa in maanta aad ogaatay taleefanadii hore ee Samsung inay bixin karaan reverse charge oo ay jaajarayn karaan taleefon iPhone ah. fadlan qaybta hoose ee faallada uga yeer saaxiib adeegsada iPhone una sheeg in taleefonkiisu uu dab ka qaadan karo taleefon Samsung ah. waa inoo muuqaalka xiga. nabadgelyo.